السلام عليكم ورحمة الله وبركاته my family wadajir group meel walba dunida ka joogtiin ciid wanaagsan haddii aad ka mid tahay familka wadajir group waa kaaga mahadcelinaya la joogaaga haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar like tana ha ka iloobin fiidiyogan ma ka mid tahay dadka sokorta neceb dadka cuntada dhibayso wax badan ayuu cuntadan kaa caawin doonaa oo afurka galabta aan sameeyey haddii aad ka mid tahay dadka tiimka cayildoonkana galabta waxaan ku idhaahday fiidiyowga adaama kuu diyaariyey ku soo dhawow waa cunto heltiya caafimaadkiisa wato waadna ka heli doontaa galabta waxaan rabaa inaan idinla wadaago afur yaroo caate ah waxaa halkaas ii saaran waa sabaayad iyadoo aan qasay aan soo xasuustay inaan familka wadajir group aan la sheergaraynin marka dhib ma laha ani muhiimadda aan fiidiyowgan u duubayo sabaayadda maaha inaan idin tuso laakiin waxaan rabaa afur aan caadi ahayn inaan idinla wadaago oo caafimaad leh borotiin leh dadka cusbada leh sokorta lehna wuu u fiican yahay waan idin tusayaa insha allah fiidiyowgayga ayaad kaga bogan doontaa kan waa qamadi aan ka sameeyey sabaayad siday u qurux badan tahay fiiri markii sabaayadda qamadiga laga sameeyo aad ayuu u fiican yahay waayo burka cad badanaa borotiin ma laha mana fiicno jir ahaan caafimaadkaagana uma fiicno laakiin sabaayadda marka laga sameeyo burka madow ama qamadiga ah aad ayuu u fiican yahay soo jiidasho ayuu leeyahay marka waxa cad badanaa iska ilaali waan kaaga digayaa sida baastada bariiska iyo burka cadba sabaayadan waxaan ku idhaahday wax ukuna laguma qasin sokorna laguma darin sidaana way u guduudatay ma ka sheekayn kartaa waxaan ku sameeyey oo keliya waa bur biyo cad caana xataa laguma qasin iyo waxaan ku sameeyey wax yar oo far iyo suul oo cusbo ah hadda waxaa ii bilaabanayso qaybtii borotiinka ahayd dadka aan ugu talagalay sokorta qabo dhiikar haddaad leedahay ilaahay ha kaa baxaayo waan kuu soo duceynayaa haddii aad cusbadaada ay kor u baxsan tahayna wax walbo oo kor u kacsan way dejinaysaa haddii aad caato tahayna alaabtan aad ayay kuu anfice oo waad ku cayilaysaa halwey gudihiisa ammaanteeda alaabtan inta kuma soo koobi karo laakiin markaad dhadhamisid ayaad ka warkeenaysaa hadda waxaan isku daray waa batarkii iyo xabad basal ah basasha inay badan tahay waa kuu muhiim waayo basasha caafimaad badanaa ku jiro cunto walba aad karsanaysa basashaada ku badnaato iyo xabad tuuna bis ayaa meeshaas ku walaaqay waxaan rabaa inay intaas isdhexgalaan basasha mar walbo oo dabka ku shiishid ama aad saliid haysatid ama batar aad haysatid adiga whatever waxaad haysatid haddaad ku shiishid meeshaas waxaa kasoo baxayo basal la yaqaano oo basasha marka la jarjaraayo sidaan wada ognahay indhaha ayay dadka ka gashaa meeshaas waxay ka wadataa wax yar oo kuleel ah kuleelkii marka maxaa dilaayo saliiddaas ama batarkaas ah ku shiishe hadda waxaan ku darayaa marka bur hal qaande ah waa borotiin burkaas feebar meel waaye dukaamada lagu gadaa qurbaan haddaad joogtid borotiinuu leeyahay haddii aad caato tahayna waa burka oo maasha allah jirkaaga qurux ka dhigayo waxa aan sameynayo maanta kulli borotiinay leeyihiin waxaan ku darayaa marka caano adiga waa 5 qaando iska qiyaas oo caanaha ah ayaan ku darayaa ma badno oo qaandada cuntada ah waaye qiyaastaada adi ugu darsan kartaa haddaad dad badan tihiinna alaabtan aan sameynayo waa ka badsan kartaa caanihii iyo meeshaas waxaan isdhexgeliyey basashii burkii batarkii iyo waxaan isdhexgeliyey xabadii tuunta ahayd intaas markaan isdhexgeliyo waxaan rabaa inaan ku daro xawaajiyaasha noocaad haysta ayaad ku darsane oo wax cusbaa ku jirin xawaajiyaashaada waxna tulaal ha ku noqdaan basal shiidan waaye hadda sidaa aragteen tanna waa kabsar caleen iyo basal oo laisku shiido oo budo ah isagana far iyo suulan ku darayaa noocaad haysatid xawaajiyaashaada ayaa isticmaalaysa oo orgaanig ah kanna waa orgaana waxaa waaye isagana waa xawaaji aad caraf u siinayo cuntadana udgoon ayuu ka dhigaa waxaana meesha ka maqneen waa barbarooniga shiidan aad ayuu u fiican yahay caafimaadka jirkaagana aad ayuu kor ugu soo qaadayaa waxaan kale oon ku darayaa double creamka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu cayilo wejigaaga qurux bucbucuu noqonayaa dadka wejiga caatada haddaa ka tahayna waxaan ku idhaahday alaabtan maski ahaan waa loo marsadaa oo wejiga waa lagu qurxiyaa sidan ayuu wejigaaga ka dhigayaa waxaan kale oon ku darayaa hilib aan hore u karkariyey oo waxaan diidayaa fiidiyowga inaan nigu dheereeyo hilibkan waa 2 xabo isagana aad uma badno 2daas xabo ayaan ku sameynayaa maadaama afur kale aan sameynayo kanna waxaa waaye wuxuu ka mid yahay
afurada aan aad u jeclahay runtii markaad cuntid haddaad gaas qabtid xataa gaaskaaga maalintaasa kugu dambeyso waxaan kuula talin lahaa haddaa gaas qabtid cuntada bisbaaska ee iska ilaali hadda baarti 2 ayaan galayaa baradho waaye oo biyo aan kusoo korkariyey oo waxay ka mid tahay afurka aan galabta sameynayo oo borotiinka leh baradhadii sida aragteen biyihii waan ka soo miiray waan soo fiiqay fiidiyowga waa soo gaagaabiyey waxaan jeclahay in aad fiidiyowgayga adoo u xiise qabo inuu kaa dhammaado marka sidan ayaa usoo jejebine geed waxaa jira xataa aniga iima yaala hadda baradhada lagu jejebiyo oo kuu fududeynayo waxaan ku darayaa caano sida aragtiin caanaha ma badinayay wax yar ayaan tis ku siinayaa oo baradhada ayay ii qurxisay sidan ayuu iigu soo baxay qaandadaasna waxaa waaye decoration le laga wadaa maadaama aan jeclahay waxa aan sameynayo in uu aad u qurux badan yahay markii miiska la saaro hadda meeshaan maxaa ka waqan iidaamkii haddaaya aan sameeyey waa kana asagina oo iswato innaba caadi maahan kabsar caleyn ama waxaan ku idhaahday kabsar caleynta walaasheed inta waxaad haysatid ayaad ku qurxin kartaa oo qurxinta waxay ka mid tahay soo jiidashada cuntada mar walbana aniga waxaan jeclahay miiskayga cuntada haddaan saarayo inuu qofka indhaha uu ka cuno waayo cuntada indhaha markay soo jiitaan ayaa cunideedana jeclaanaysaa sidan ayuu noogu soo baxay hilibkina sidan ayuu kor uga saaran yahay haddaa rabtid xataa malaay ama digaag waxaa rabtid adiga waxaa ku samaysan kartaa wixii gurigaaga ku yaallo waxaa lagu cunayaa marka sabaayadii haddaaya aan dubay oo sidan ayadana iigu soo baxday waxaan ku iri afur yar oo waxaa waaye caafimaad jirkaaga u leh maadaama maanta dhan sooneed jirkaaga wax heltiya geli oo caafimaad jirkaaga usoo celinayo waa muhiim jirkaaga inaad ka shaqaysid waxaad cunaysidna inaad ogaatid caafimaadkooda adi ayay dan kugu jirtaa haddii aad tahay dadka sokorta qabo ama cusbada dhibaysana raashinkan adiga ayaa maanta kuu diyaariyey welcome haddii aad tahay dadka oo dhiikarka qabana cuntadan adiga ayaan kuu diyaariyey sidoo kale kusoo dhawow tiimka asxaabul caliidoon haddaa ku jirtidna alaabtan baradhaaba dul saaran sidaaba indhahaaga ka aragtay galabta waa ka bilowaan ku iri fiidiyowga markuu kusoo gaaro waa idinka mahad celinayaa fiirsashada fiidiyowgayga laygta waa ii muhiim waaba fiirsata laygta waxba kaama dhibaayo suulka dhac iskaga sii waa inoo fiidiyowgan iyo fiidiyow soo soco fiidiyowga xiga oo noqon doono cun iyo calaaji yaa caloosha igey aan idiin soo wadaa iyo shishimow سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سألنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدق